السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddaynu wax xubtaa waxaan ka codsanahay inaan ugu soo biirto haddii hor joogto ku maasantahay la joogaaga. Haddaba waxaan soo qaadan doonaa jilaaga caanka ah ayaa shal laga soo saaray isbitaal ku yaala dalka Bombay maadaama talaadada isbuucii horeeto lagu dhibaateeyay asigoo gurigiisa joogo saqdhaxa soo weeraray nin aan heebtiisa la garanayn balse sida booliska ay xaqiijiyeen waxa ay sheegeen nin ka soo jeedo dalka Bangladesh magaciisa lagu magacaabo Maxamed Shariif Islam Shehzad kaasi oo ahaa Bangladesh ayaa dhibaatadaasi geystay ay sheegeen sidii booliska xaqiijinayaan ay leeyihiin waan hubnaa inuu ninkan dhibaato ka dambeeyo balse familka oo Seif Cali Khan ka soo jeedo waxay codsanayaan in baaritaan dheeraad la sameeyo inaysan macquul ahayn nin dalka ku cusub nin aan dalkiisa aan u dhalan oo soo galooti ah inuu qof caan ah gurigiisa degan ku weeraro midiina ku dhaawac kadibna baxsado ay dhahaan ninkaas ayaa ka soo jeeda waysan ku qancin familka balse waxay dalbadeen in baaritaan dheeraad ay dalbadeen. Haddaba Seif Cali Khan markii isbitaalka laga soo saaray waxaa gurigiisa ku hareeraysan taageero badan oo gacan qaaday inuu caafimaad qabo caafimaadkiisana ogaanay halkaas hadda waxaa jooga boolis dheeraad ah oo amnigiisa sugi doono sidoo kale Seif Cali Khan familkiisa waxay dalbadeen shirkad ka shaqeyso amniga taasi u qaabilsan in amnigiisa ay sugi doonto hadda iyo wixii ka bilowday inaysan dhici doonin xitaa inaysan qof ka soo dhawaado xitaa jila ayaan ahay atoora ah ilaa san amni asigoosan ka haysan wax fasaxa inuusan u gudbi karin gurigiisa. Haddaba qaybta ugu degan yahay blogga waxaa la leeyahay 3 ilaa 4 waxa waardiyadoona booliska meesha joogo iyo sidoo kale security ay qabsadeenba. Haddaba jilaagani waxa hadda u muuqdaa mid caafimaad qaba sida kan ka arkayna sawirada la soo bandhigay ayaa ka dheehan karnaa inaysan ahayn dhibaato xoogan laakiin dhibaatadiisa ay u badan tahay dhanka feeraha iyo xabadka in midida ugu dhacday laakiin sidiisa caadiga wuxuu ahaa mid caadi u socdo nimbisan oo qurux badan wuxuu u muuqday mid gurigiisa asiga tagi kareeto. Haddaba jilaagani waxa hadda Hindi ku soo kordhay in dhibaatooyin noocan oo kale inay sii kordhayaan haddii aad ogtihiinba waxa Salman Khan atoorahan waxa u dhaartay nin ka soo jeedo dhanka kuwaani sigsiga ah waxaana uu ku haystaa in Salman Khan uu ka dilay bahal deerada saa u naqaano deerada ay caabudaan dhowr sano ka hor oo Salman Khan xataa naftigiisa maxkamad loo soo saaray 5 sano lagu xukumay xukunka oo gatay laakiin ninkaasi ka soo jeedo oo dhankaasi sigsagaasi ka soo jeedo oo deerada caabudaan waxa uu leeyahay anay taasi kamid Salman Khan waxaan ka rabnaa raaligelin buuxda inuu bixiyo oo ku dhaho ninkaasi aniga ayaa dilay waxaan ka bixinaa raaligelin hadduusan bixinne waxaan dili doonaa naftiisa iyo cid walba ka agdhow. Sidoo kale waxay dhibaateeyeen wax Baba Sadiq kaasi oo ahaa siyaasi caan ahaa waliba noqdo duqa magaalada Bombay kaasi oo lagu dhibaateeyay 3 bilood ka hor asigoo socdo wadada kaasi ilaa hadda la xaqiijin cid ka dambeysay dilka saxda ah balse ninka Salman Khan oo dhaartay kaasi oo sheegay inuu ninka ay ka dambeeyeen dilka sababtii u dilina ay yihiin Salman Khan inuu ka agdhow yahay. Salman Khan ayaa security-kiisa mar walba xoog u badiyay meel walba uu tagayo mar walba hanjabaad ayuu kala kulmaa dhankaasi ninkaasi. Haddaba falalkaasi way sii badanayaan maalin kasii dambeyso. Haddaba waxaa hadda dhibaatada ugu dambeysa loo geystay waxay ahayd Seif Cali Khan oo gurigiisa hadda aan ka soo warrameyno oo gurigiisa lagu dhibaateeyay haddana wuxuu muuqdaa mid qaba haddii inta aad joogto ku maasantaa la joogo wax ka codsanaa muuqaal sheegayso oo meel dheer gaarsiismas.